السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان معامشني ولا لهنا قالي قابا سودو هذا ما توحي نكحد لدونا قيب كمدا قيبه هنا إسكينكا بعدين عم قاركا وحي نكحد لدونا قيب تحارتا هرتا وحيالا فربضان ayaa haaraha jirka ku sababa common cause amba waxyaalaha ugu caansan ee la isla ogyahay inay haarta sababaan kow waxa ka ah sanaga exposure-ka amba qoraxda oo kale qofka haaraha way ku sababaan sidoo kale waxaa sababa hormoonada jirka oo xilliga pregnancy-ga amba xaaladda uurka oo kale isbedelka ku yimaada ayaa sababa sidoo kale waxaa sababa skin care product-yada ay badanaa ku jiraan chemicals-ka sida irritation-ka iyo cuncunka waxyaalahaasi ee keena sidoo kale haaraha waxaa sababa melanocytes-ka amba cells-ka ilaahay inoogu talagalay ee soo sii daaya kalarka skinkeena oo yacni kalar badan soo daaya oo marka uu qofka jirkii uu ka muuqdo kalar fara badan halkaasina ay haaro oo kale oo qofka ay ku noqoto meelaha inta ugu badan ay caanka ku tahay ee haarta oo kale qofka ku sameysmaan waa sida dhabanada oo kale wejiga qaybtiisa sare sanka oo kale halkan garka oo kale meelahaas oo kale ay inta badan ay haaruhu ka muuqdaan run ahaantii haddaba haartu wax dhibaato caafimaad ee qofka ku haysa ma jirto oon ka ahayn in quruxdiisii iyo haybadiisii wejigu ay qofka ka lunto inta badan waxaa ku badan dumarka oo 90% dumarka ku badan laakiin ilaa 10% raggana way ku dhacdaa inay sababaan maadaama xaalado kala duwan iyo waxyaalo kala duwan oo soo sheegnay ay inta badan sababto qofku haddaba uu la tacaali karaa skinkiisii oo waxaan ku yimid uu ka saari karaa waxyaalaha inta badan qofka caawin kara waxaa kamid ah cunto wanaagsan inuu qofku qaato sidoo kale waxaa kamid ah sunscreen-ka amba productyada sunscreen-ka inuu qofku isticmaalo sidoo kale waxaa kamid ah skin care products wanaagsan inuu qofku helo haddaba maanta waxaan idinla wadaagi doonaa skin care-rada kambanigeena uu hayo taasoo maasha allah quality-ga ay u leeyihiin dhinacan skinkaaga marka ay haar noqoto aad u wanaajinaya qaybtaas waa qaybtan mask powder-ka iyo activator-ka waa labadan product runtii waxay ka samaysan yihiin activator-ku maasha allah wuxuu ka samaysan yahay 90% pure oil wuxuu ka samaysan yahay 99% oil-yadii amba dacartii oo nadiif ayuu ka samaysan yahay wuxuu jirkeena siiyaa ase qaboojiya amba conditioner oo kale weeyaan qaboojin oo kale ayuu jirka siiyaa sidoo kale wejiga oo kale qofka uu u jilcinayaa deep cleaning amba cleanser lana weeyaan oo cleaning xoog ah ayuu jirka siinayaa mask powder-kiisna waxyaalo fara badan oo faa'iidooyin fara badan skinkeena u leh ayaa ku jira sida albumin-tii oo kale waxaa ka jira oo kale kaolin-tii oo kale ku jirta allotonin-kii oo kale ayaa ku jira macdanahan oo kale waxay jirkeena siinayaan waxyaalo kala duwan waxaa kamid ah waxyaalaha jirka siinayaan inay dib u cusboonaysiinta maqaarka jirka inay ka qayb qaadato allotonin-ka oo kale maasha allah sidee buu haddaba qofku productigani uu isticmaalayaa ama productigani waa product runtii wejigaagii qaboojiye siinaya clean siinaya maqaarkaagiina ka caawinaya in pigmentation-kan amba kalarkan faraha badan leh ay saliskaagii soo daayeen amba xaalado kala duwan buu qofkii ugu yimid in uu ka saaro maasha allah productigani